بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا وناكسن كسو دوادا برنامج شكر شو waxaa maanta marti igu ah Hinda Nuur Shaxshaxley abwaanadeena Hinda kusoo dhawo barnaamijka sharaf ayba inoo tahay waliba waqtigaaga khaaligan waan kaaga mahadcelinaynaa Hinda. mahadsanid aad iyo aad ayaa u mahadsantahay waan ku dhowahay farxad ayaa ana sidoo kale ii tahay inaan maanta halkan ku kulanno oon labadeena wada hadalladano oon wax kala falaqayno insha allah soo dhow Hinda waa aad mahadsan toddobaadkan waxaa baraha bulshada qabsaday buuq markaa hareeyay farxaddii fanaanada Nadiir Nayruus iyo saygeeda kadib markuu sanad jirsaday guurkooda ilaahay ha barakeeyo reerkaas sidoo kale wuxuu ilaahay ugu deeqay ubad qurux badan gabadhooda nasiib marka Hinda ka waran arrimahaas. والله horta marka ugu horeysa waxaan leeyahay hambaliyo farxadoodana waxaan leeyahay tii raagto isku raagaan Allah ka dhigo ubadkana Allah u siyaadiyo inta dabadeed waxaan aad iyo aad uga xumahay in horta reer lagu mashquulo isku cusub oo danahooda laga hadlo oo maxaa la isku qoori waayo waa waxa waayadan dambe aad u malayso in Soomaalida ay ku bateen oo ay qofka markay arkaan in waxoogaa ay u kala kacsan tahay ama ay nolosha u wanaagsanaatay ay daba dhigtaan marka aad iyo aad aan uga xumahay waxaan aad iyo aad uga xumahay wax wanaagsanna ma aha in gabadhaas taas loogu mashquulo waan gartay runtii waxaa la yaab ka lahayd in aabba Soomaaliyeed ayaan dhihi karnaa maadaama qof weyn ahaa uu soo sheegtay inuu Nadiiro dhalay haddana isla maalinkii gudaheedii gobolka Gedo inuu kasoo hadlayaan jecela aabbaha Soomaaliyeed uu yiri ilmo badan baa iga maqan Nadiiraha iga raali ahaato ma aha marka Nadiiro ma noqonayso qof la garan waayay waa la yaqaanaa walaalo badan baa la dhashay iyadu mar ay qudheeda warbaahinta la hadashana waxay sheegtay hadda aniga reer dhan baa yaraan u ahay walaalaha ay kala muxuu soo sheegay waa kaliya ii sheegtay tirboogta haadiyaad horta way dhacdaa oo waayadan dambe waxaad moodaaba in dad lacag la soo siiyo oo la yiraahdo qofkaas maadaama sumcadiisa ay dhakada sare tagtay si xoogaa loo yara sumcadilo muxuu ahaa odaygana uu iska gaajaysan yahay dhaqaale yar inta la soo siiyo waxa laga yaabaa la yiri anaa dhalay dheh oo muxuu ahaa noo matal inaad adigu dhashay marka qofka hadduu gaajaysan yahay oo duruufo looga faa'iidaysan inuu iska sameynaya Soomaa inkastoo aanan jeclayn inaan dambaabo laakiin dad badan oo had waayadan dambe waxaa dhacday in dadka caanka inta badan lagu mashquulo oo la yiraahdo laga dhigo waxaysan ahayn marka aan waxba aaminsanahay qofna u cil noqon maayo qof walba wixii dhalay uu yaqaani iyadna hadiiba lagu mashquulay sharaf iyo waxay un ka qaadaysaa muxuu ahaa inay sii socoto dhakada sare sii tagto marka dad waxaan arkayay bayaan sii fogaan wixii la weydiinaan ka jawaaba jecelahay dad waxaan arkayay iska jabsanaya waxyaabaha oo saaid iskugu mashquulay marka Nadiiro waxaan leeyahay damo lagu mashquulo ma magacaada u fogaaday ha u bixinaa dhii lahaa tabci waan ka simano banto waan wadaagnaa tooqiyo jacaylkana inaga bakala daran marka toddobaadkani waxay noqonaysaa toddobaadkii Nadiiro iyo Ciidid هذا عبد الرحمن أظن وحيد ترى هاي ما لا وهي عرور إسكها هذا شيء وح كسوقات ملعب لا مركب وحن إيه لا كسوقات ملعب لا هاكو مشغولين أدنى دنك إنه كفرتنا وحال غيره الدقائق إذا دقيقة كهين يسيرف بالش موقت يا مركب إسكا قيلينا إذن بالش هكرف توضي إذا هسكلنا صوت ما حكى قصية ده ما أي مشغولان ما إذا نسيق رحضه magaceedu uu heer sare gaaro waa heesta macaan ee toddobaadkan ay soo qaaday runtii sanad guuradeeda lagu soo beegay heeso badan loo sameeyay fanaanka Dayaxdan Nuursha ayaa qayb ka ahaa hees ugu talagalay sax xaflad qurux badan oo maasha Allah ugu dabaaldegeen xuska sanad guurada gurkooda iyo arrintan waxa soo beegay ayaa dadkii iyo social media aad loo hadalhaday toddobaadkii Nadiiro iyo Ciidid ayuu noqday social media aad iyo aad aan ugu faraxsanahay ilaahay isu daayo waa laba qof oo aad iyo aad isku qanacsan saan arkayay ilinta raxmadaaba ka socotay marka waxaan leeyahay Allah isu daayo dadka ka xun oo laba qof oo isjecel oo isku qanacsan ka xuna waxaan dhihi lahaa kulli waxba ka qaadi meesaan intiina meelaysta in dad lagu mashquulo waa laga fiican yahay waarun tiis marka social media badana wuxuu noqday warar dadka tashwiish ku abuuraya warar marka dadkii lamaanihii ama noloshoodii bilaabay daqiiqad kadib waxaad arkaysaa warar oo naqdinaya wallahi aad iyo aad anoo Soomaalida hadda inta badan waxaan dhihi kalaaba waa sunta hargaha marka meel yar la mariyo meel kasta ka soo urtaa moogtahay
سفيعا soomaalidana iska daba qaadashada ku dheereeyaan oo qofka maba arki karaan waan ayaana waxaan aan Denmark joogay ayaa muxuu ahaa nin mashquulaaba aba qalad haddii in case xataa inay u jawaabto isku daydo inay tiraahdo aanu de qof dhuumanaysa ma ahay qof la yaqaan ahay hooyada iyo aabaheed meel loogu hagaaga leh wixii ugu mashquulo qushigooda laakiin ani badayda lagala faraha lagala baxa ama inay ka aamustabo aamusnaanta laakiin ani ilaha boon inay shib u dhahdo waxaan qaylinayo dhanba ilaa waxba ka qaad sidaan ognahay gabadhan waa dhal fanaan aabaheed waa la yaqaanaa bal hinday aqoonta aad u leedahay bal adiga u dhaad hal iyo laba nadiir nadiir wallahi ani inta kullee hadda aan ka maqlay mag iidaaba hadda baanad maxaa fanaanad cusub oo maxaa inkastoo ay cusub tahay haddana aad u shaac baxday ani gabar cida gala ahaan ku maqlay hooyadeedna ee Mariixaanta wixii kale aabaheedna waa la yiri nin fanka oo luku lahaa ayaa dhalay gabar isaaqa oo cida gala ahaan anu ku aqaanaa dadkan kale waxay sheegayaan iyaga u taalaa sida anu aan kullee ku maqlay inkastoo aabeed iyo hooyadeed hal u kala garanayn laakiin inta hadda ani maqaal igu ah inay tahay gabar cida gala ah kulli eedna afkeeda way ka sheegto waxay tiri anu gabar isaaqa ahay oo cida gala ah marka wixii loogu siiyay qofku wuxuu sheegto in la aaminaa wanaagsan magto qof weyn oo maxaa mas'uul qaado responsible mid kale waxaaba qalada in qof qabiilkiisii iyo noloshiisii private lifekiisa in lagu mashquulaaba totally wrong aad inkastoo qabiilku diinta تعارفوا كلي وحكر هذا اللي سنقرتيه لكن أنا استعمالنا وأنا اسكو دباتينا قبل كبدنا يا والله قد إذا صاب مررك قارل هذا واشي قال وكان أنا اسكو قصلا وأنا اسكو صعبة because قفك وحبك أقول ما يسمى وقت قفك أدوك الشيء أنا وحير هذا قلبي الشيء توا هاي كوده سوماليا ما هاي قفك استنا ولا لك ولا شيء marka ciidan ka faanayay ma jirto waxaan ahayna de hooyadii aabi dhalay ciidii taqaanaaba ogi wax lagu mashquulo meesha ma taalo si fiican marka iyadna inay un sidaa yeesho waxaan ahay waan ahay no one aan bedeli karo waxaan ahay si fiican hind balmiya dadaadiyo dunida ka helaya balmiya dadaadiyo dunida ka helaya sabato nin dhafiyo qof nasiib la نيروز انت نولا مع نولا نيروز نولا ولكم نعود لا صباتو نقدر دافتيو قف نصيب لا بلا عيدي تبعي وانك سيمونو بنتو ودقنا توخي جعيلكنا إنك بكلا درن هندان نور شحشحلي أبواندا سوماليات هند وكو سلامينا aad baad ugu maadsan tahay sida quruxda badan ee barnaamijkan aad nogala qayb adiga mudan nadiira iyo xaajigeedana in badan halkan ka salaamaya hay aad iyo aad isku dhownaayna ku salaamaya mar kale farxadan ku rajaynayaa baran insha Allah hinda aad u maadsan tahay